الله أديك آمنايو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاليال waxaan rabaa halkan inaan idinku soo jeediyo insha Allah qiso cajiib ah. qisadan waxaa ka sheekeynaya sheekh u dhashay wadamada Carbeed, wuxuuna ugu sheekeynayaa dad isugu yimid meel barxad ah, wuxuuna ku bilaabay sida tan. waxaa jiray sheekh imaam masaajid ah, masaajidka ah caabud ah oo aad u daaweynaa, garkiisa iyo timihiisana eraysteen. habeenada ka mid ah ayuu jaamacadda muslimiinta ah wuxuu tujiyey salaada. kadib salaadii markii laga baxay oo uu gadaal soo eegay ayuu arkay masaajidkii oo camir, laakiin dadka soo buuxiyey masaajidka kulligood waxay wada ahaayeen dad waaweyn oo da' ah, indhihiisana waxay qaban waayeen hal qof oo dhalinyaro ah. kadib ayaa wuxuu weydiiyey jamaacadii, aaway shabaabkeeni ama dhallinyaradeeni, maxaa masaajidka u diiday? dadkii baa yidhi, shiiqow, dhallinyarada waxay joogaan meelaha kalaabka ah iyo meelaha wakhtiga lagu lumiyo. shiiqii ayaa yidhi, oo maxay ka qabanayaan oo ka faa'iidayaan meelahaas? dadkii baa yidhi, shiiqow, meesha waxaa laga helaa hablo qurxoon, qamri, heeso ama muusig iyo wax la mid ah. shiiqii aad buu u carooday, wuxuuna yidhi, yaa i raacaya, aniga waan socdaa oo waxaan aadayaa meeshaas si aan ugu waco dhallinyaradeenii waddada saxda ah. dadkii oo dhammaaba yaabay oo yidhi, shiiqow, meeshaas oo kale kuma qalanto, waa meel xun ee iska dhaafa aadine. shiiqii baa yidhi, ilaahay baan ku dhaartaye waan aadayaa, wax kalena uma aadayo aan ka ahayn inaan soo celiyo dhallinyaradeenii luntay. shiiqii wuu baxay, waxaan raacay keliya 3 ilaa 4 qofood. markii uu gaaray kalaabkii oo uu damcay inuu galo ayaa waxaa celiyey nimankii ilaalada ah oo ku yidhi, shiiqow ka joog, waxaan u malaynayaa inaad soo qaldantay, meeshaan meeshaada ma ahan, waa kalaab ee orod ka tag meeshaan. shiiqii baa yidhi, maya ma soo qaldamin, ee waxaan rabaa kalaabka in aan galo, wax kalena kama rabo. waxaan rabaa inaan soo toosiyo dhallinyaradeennii meesha ku jirto ee ii fasaxa fadlan. ilaaladii baa ka diiday inuu shiiqa galo, kuna tiri, kuma fasaxi karno ilaa aan fasax ku weydiino milkiilaha meesha. milkiilihii baa loo sheegay arrintii, kadibna bannaanka u soo baxay kuna yidhi, shiiqow, kuma fasaxi karo gudaha, sababtoo ah aniga irsaaqadayda ayaan ka raadsadaa ama ka helaa dadkan, haddaad iga wadidna waan waayi doonaa lacagtaan ka heli jiray. shiiqii baa ku yidhi, ii sheeg meeqaad ka heshay, aniga hadda ku siinayo keliya gudaha i fasax. ninkii ayaa yidhi, isii intaas iyo intaas lacag ayuu u sheegtay, waana ku fasaxayaa. shiiqii ayaa sidii ku bixiyey lacagtii, looguna fasaxay gudaha markuu galay ayuu yidhi, dhallinyarooy i maqla, ilaahay ma uusan idin abuurin ciyaar, ma uusan idin abuurin waqti lumis, ma uusan idin abuurin inaad ku caasisaan, ee wuxuu idin abuuray inaad caabudaan keliya. markaas buu aayad u soo qaatay oo uu yidhi, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, ma waxaad moodeen inaan idin abuurna ciyaar oo weliba xaggayga aadan u soo noqon doonin? ee dhallinyarooy i maqla, wallaahi waxaan idin ahay qof idin digayo oo cadaab daran idinkaga digayo, ee isoo raaca. wadaadkii wuu iska soo baxay, wallaahi cid ku hartay kalaabkii ma jirin, oo dhammaan wiilashii iyo gabdhihii way soo wada baxeen oo soo wada raacay shiiqii. subxaan allah. wadaadka sheekada ka sheekeynayay wuxuu farta ku fiiqay wiil dhalinyaro ah oo ka mid ahaa dadkii wacdiga dhegaysanaya oo safka hore ku jiray, kaasoo ka mid ahaa dhalinyaradii ka soo baxay kalaabka oo soo raacay shiiqa. wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.